بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسك إن شاء الله تعالى وحكو سابسين حديث كمده أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وقصة أروري في صحيح مسلم. حديث كسي أبا هريرة ورنا يوحان النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نبي عليه الصلاة والسلام حديث كما حكوت المامية قيب حكو سفين يا قفك مؤمن كاه حقا يسدوغ خير بدن يهي كي ضعفك كجرو. قيبها الضمانة وحكوت المامية النبي عليه الصلاة والسلام وصينا يددك مسلمين تا وحو النبي يقول: المؤمن القوي، مؤمن كحوغاه قوة لشيغيا ومعنى بلارنتي. علماء ضبط وكمية إمام النووي رحمة الله عليه وحليه: والقوة في الدين والتقوى والعبادة. قفك مؤمن كي كحوغا عقيدة ديس يا دين تيس يا عبادة ديس كاول سكوة الرعسي سين كاسا خير وأحب إلى الله، كخير بدن وألكتي سلقاقتش عليهي من المؤمن الضعيف. مؤمن كعقيدة ديس أما إيمان كيس أما عبادة ديس أما أعماشيس آخرة أي ليدته. waxay kaloo culimadu ku tilmaamaan المؤمن القوي. المؤمن القوي وكا الرجل القوي هذا يراده، أي القوي في رجولته كاسوا معنى لبعض علماء التلمامة وحويان إن قوة الله إطلاقه ومؤمن كحوق بدن له، سواء هدو حوق جريدي هي أو دي جهادي أو عبادي يكو استعمالي، أما هدو حوق عقليات يهي، أما هدو حوق علميات يهي، أما هدو حوق عبادي، أي باب حوق وقل كرابي لي. مركا مؤمن كأود بدن له، أود دي ساسي خير كواد يكسدية إيمانك يو إنتاجك يو وحصوصارك. مؤمن كاساك خير بدن، مؤمن كضعيفك. علماء حينها في الأصل دي قوة والله فرق: وأعدوا له ما استطعتم من قوة بإلهيلي. markii gaalada iyo jihaadka laga warramay waxa u diyaarsataan wixii xoog ah awoodaan oo dhan baa la yiri. idan xoogu fi kulli abwaabihi hadii khayr loo adeegsanayo waa khayr. waxay yiraahdaan mu'minka jirahan xoog badan ee quwwa badaniya leh ee khayrka u adeegsanaya dee uu ka waxtar badan yahay mu'minka daciifka iska liita yani isagu wax badan qaban karaynin. مؤمن كحوغا في علمه وفي إنتاجه وحصوصار كيسيا قونتي ساي حوغا بدنتهي ددك كو أنفعيا وكفض بدني كي جهلك كوشري أمسه كي أن منتج كاهين الليزيها كي قف كيس كفرديا وحصوصار كلاهين وحدودو بهان تلماميسا قوته حتى قوة البدنية. قصدي مثل النبي موسى إلهي مركو كورمي غير مدويمي مقالة ماشا dadku xoolaha waraabsanayaan hablu laba hablood ay xoolahoodii cidlo ula baxeen maxay idinka ku dhacay buu yiraahdo xoolaha waraabsan weydeen waxay yiraahdaan anaga aabahayana waa gaboobay yani waa daciif ma yaqdir shay anaguna ma gallo raggu meeshan ay isku jeedayaan ilaa ay ka baxaan dabeetana wuu waraabiyay hadhow inantaasi markay aabaheed la hadlaysay ee rabtay
ninkan reerka aan ka tagina si uun loogu hayo ayaa waxay tidhi yaa abati istaajirhu ina khayra man istaajarta alqawiyu lamiin aabbow ninkan shaqaalaysiisa bay tidhi oo ajiir ka dhig ina khayra man istaajarta alqawiyu lamiin bay tidhi qof shaqo loo dirto waxa u fiican qof xoog leh oo qawiyo wixii qaban karaya ammaanana leh idan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa mu'minka xooggan oo ay ugu horraysay ilaahay rumayntiisa iyo taacadiisa iyo cibaadadiisa iyo acmaasha aakhire ku xooggan dad baa jira sida kale u xoog badan laakiin marka ay timaado cibaadaadka iyo diinta iyo caqiidada ducafa ah kani kow waa qof baabkaasi ku xoog leh ka labaad waa qof bay yidhaahdaan muntij ah qof wax soo saar leh kaasi wuu ka khayr badan yahay mu'minka daciifka ah haddana wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wafii kullin khayr mu'min oo dhanna khayr baa ku jira intuu qofku iimaan iyo camal la yimaha laba kala martabo sarreeye khayr baa ku jira waxay yidhahdaan culamaa ilbalaaga masaladan oo kale alixtiraaz bay yidhaahdaanoo waxay ku tilmaamaan qofku intuu war yidhaahdo in siyaabo kale aan loo fahmin ayuu ka ixtiraazaa maalan ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi laa yastawi minkum man anfaqa min qabli alfatxi waqaatal ulaa'ika acdamu darajatan min aladiina anfaquu min bacdi waqaataluu ma sinna baa ilaahay yidhi kuwii fatxuma ka horteed xoolaha bixiyee dagaalamay ee diinta u soo halgamay kuwaasaa darajo sarreeya oo fatxu maka wixii ka dambeeyey wixii markaa islaamay ee wax qabtay miyaan wuxuudu tirsiis lahayn haddaad sidaa u fahmi lahayd way qaldami lahayd laakiin ilaahay baa ka sii jawaabo wuxuu yidhi wakullan wacada allahu alxusna dhammaantood ilaahay baa u yaboohay wanaag labaduba wanaag bay leeyihin